gurigan oo muddo ku dhow 30 sano ka maqnaa dhaxaltooyada reer Xuseen Faarax Warsame isla markaana dacwadiisu ay taalay maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta maxkamadda gobolka Banaadir ay ku wareejisay reerkii lahaa milkiyada gurigan hooyo Faadumo Cali Nuur oo dacwadda maxkamadda daba socotay ku dhawaad 13 sano ayaa ugu dambeyn saakay waxa furaha gurigan ku wareejiyay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Cali Maxamuud Dabaan ayadoo goobjoog ka ahaa taliyaha booliiska qaybta bartamaha gobolka Banaadir gaashaanle dhexe Daahir Xaashi maxkamadda gobolka Banaadir ayaa amarka fulinta gurigan soo saartay isbuucii la soo dhaafay kadib markii reerka guriga lahaa ay maxkamadda ka furteen gal fulin amar maxkamadeed sida uu sheegay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Cali Maxamuud Saalax Dabaan Faadumo ay wakiilka uga aheeday dhaxaltooyada reer Xuseen Faarax Warsame oo Faadumo Cali Nuur ay wakiil u tahay garabkayga badaxna hadda ay taagan tahay ujeedka halkaan aanu taaganahay waa fulintaas warqadan fulinta ee maxkamaddu ay soo qortay waxay taariikhdeedu ay tahay 4 bisha afraad oo hadda laga joogo 6 maalin marka amarkan fulinta maxkamaddu waxay qortay 6 maalin ka hor maanta oo maalintii lixaadna uu fulaya hadda la idmo marka sidaan hore u ballan qaadnay ballanteena waxay ahayd in aan dadka xukuumada heesta oo maxkamadaha intay u xukumeen guryahooda la jooga ama maxaan ku yiraahdaa cabashadoodu inta badan bulshada gaarto in ay xaqooda helaan oo ay ku helaan sifadii sharciga aheeday hooyo Faadumo Cali Nuur ayaa uga mahad celisay gudoomiyaha maxkamadda iyo sidoo kale taliska booliiska gobolka Banaadir kadib markii gurigeeda lagu wareejiyay si cadaalad ay ku jirto waxa maanta farxadii ah inaan cadaaladii ugu horeysay oo 13 sano aan dacwo taagnaa inaan maanta helay emotional baan noqonayaa raali haliga ahaado 1991 dalkeeni iyo dawladeeni burburtay intaas oo sanadood gurigan gacantaydu ka maqnaa sifooyin kala duwan oo kala maqnaaday sidoo gudoomiyaha sheegay waxa mahad iyo bogaadin iyo maxalli jira abaal aan uga hayaa cadaaladii horta inay imaatay oo Soomaalinimadii maanta la arkay oo soo ifbaxday gudoomiye Saalax Cali Maxamuud gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir sidoo idin sheegay 5 bilood oo xafiiska jooga muddo 2 bilood ka yaro anigana iigu dhameey 6 ay soo baxday maantana waxa way 3 waxa la jiray xildhibaan Zainab Ismaaciil ayaa sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay in danta cadaaladda laga shaqeeyo iyadoo shacabka Soomaaliyeed ugu baaqday inay ku kalsoonaadaan maxkamadaha dalka runtii waxay muujisay ama aan ka arkay ama aan ka marxaanti furaya inuu yahay nin dhalinyaro ah oo nooleynaya sharciga iyo kala dambeyntii wax badan baa la yiri maxkamadaha dawladda lama aadi karo oo cadaalad ma taal waxaan ka marxaanti kacaynaa in uu soo noolaaday cadaaladii iyo usinaantii sharciga taas oo ay tahay waxyaalaha aan rabno inay qarannimada iyo mataqaana dawladnimada kor u qaadaan ahna runtii tiirka ugu muhiimsan hadii cadaalad la helo wax kasta way hagaagayaan Cabdullaahi Maxamuud Amiin Cabdullaahi Qorshe warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho